السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaad hadeer waxaan qaadanaynaa qaybta media in HTML HTML markii la jeedo qaybta media waxaa noqon kartaa video ama sawir labadaba si fiican u qaadanaynaa isla socono haddii isla fiirino qaybtan images markii la isticmaalayo waxa weeyaan taggiisa waa tag loo yaqaan empty tag ayaa loo yaqaan taggiisa yani no closing tag ma laha tusaale kale paragraph markaa qorno paragraphka wuxuu leeyahay closing tag ayuu leeyahay oo ah calaamadda lagu jaranayo waa maxay calaamadan ayaa lagu jaranayaa saa idin sheegay calaamadaas ayaa lagu jaranayaa soo ma okay halka tusaale kale BR markaa soo sameeynay oo break BR markaa soo sameeynay saa u jeedo waxaa arkayseen inuu ahaa mid PR break waa asina wuxuu ahaa mid closing tag lahayn ayuu ahaa saa u jeedo calaamad closing tag waxaas dhan ma lahayn marka waxa loo yaqaanaa empty tag ayaa loo yaqaanaa empty tag ayaa loo yaqaanaa marka empty tag ayaa loo yaqaanaa so img da marka sidaan loo qorayaa haddii aad qortid image marka taggiisa aad sameynaysa marka img ayaa leeyahay marka waxaa soo jeshanaysaa video ayaa soo jeshanaysaa ama sabir video hadda waa kan aan soo geliyay video hadda aan soo geliyay aan duuweynay sabirna waan soo qaadanaynaa marka sabirka hadda halkan uu yaala desktop uu yaala desktop markuu yaalo hadaa aragtid marka waxaa samayn kartaa drag and drop waxaa kusoo draajaray kartaa Visual Studio Code halkan ku aadinaysaa xitaa haddii xirantaa soo furaysaa halkaas kusii aadinaysaa marka sidaas ayaa markaa kusoo geli kartaa waa mid koowaad ee qaabka koowaad uu soo geli kartaa qaabka labaad waxaa waaye inaad dabcan soo kadjaraysid kadib folderkii aadid folderkaas aad ku baasjaraysid automatically wuxuu markaa imaan doonaa VS Code ayaa lagu arki doonaa automatically hadda hal mar hadda ayaa daadaleeda iyo hadda marka la soo geliyay labadaba qaabkaas uu soo galaya yani hadda soo daraajiray iyo hadda markaas si kale uu soo geliyay intaba marka waxaan rajaynayaa intaa yareynaya yara fahmaysaan qaabka loo soo gelinayo image okay hadda marka image soo jesho magaca u baxsan kartaa waxaan dhigi kartaa image okay .png okay marka image marka sameeysid taggiisa sameynaysaa waxay imaan doonaa filekii soo furan doonaa marka img sana loo sameeyo waxaan sameynaa img ayaa leedahay waa image lagu sameyn doonaa marka source src dan source ayaa laga wadaa waa imageka meesha uu yaalo marka imageka meesha uu yaalo .forward ama waxaa dhigi kartaa forward labadaasaa sameyn kartaa marka waxaa dhigi doonaa .forward kadib waxaa dooran doonaa image hadduu iisoo qaban waayo waa anaa caadi u qoraya laakiin badanaa uu kuusoo qabanaya okay marka wuxuu ku dhufanayaa imagekaas marka waxa weeyaan oo liisoo muujin doonaa haddii aan fiirino qaybtan waxaa ujeednaa image ayaana loo soo muujiyey okay waa markii ugu horeysa aan sawir soo gelisaa filaya okay imageka marka wuxuu leeyahay attributes kale waxaa geli kartaa width ayaa meeshaan geli kartaa oo balac laga wado kadib waxaa dhigi kartaa 500 then wuxuu noqon doonaa 500 width ayuu yeelan doonaa okay waa badi kartaa waxaa dhigi kartaa 900 width ayuu qaadan doonaa sidoo kale height-na uu leeyahay iyadana height waa sii kartaa waxaa dhigi kartaa height 500 iyo wixii lamid ah so automatically badanaa haddii width aad siisid height-kana automatic uu qaadanaya so badanaa height-ka marka lama siiyo okay src dan hadda idin tusay haddii aad wax ka qalad dabcan ma soo qabanayo imageka waxaa weeyaan waxa soo ma qabanayo okay maadaama mararka qaar aad qaldi kartid waxaa la rabaa in lagu muujiyo sawirka meeshan sawir ayaa la camal in loo dhaho marka altadan wuxuu u taagan tahay wixii markuu aad soo qaban weyso sawirkii markaas soo saari weyso ama si sax markaa usoo dooran weyso su'aal kale hadda image oo ahaa images aa dhahay si sax maana usoo dooran balse meesha layma tusaayo in sawir aad rabay inaad soo doorto marka altadan alternate laga soo jaabiyey waxay u taagan tahay bedel u tahay imageka haddii la waayo qoraal aad ku qoraysaa marka waxaa leedahay tusaale kale image camal aad ku qoraysaa marka hadhow waxaa lagu soo muujin doonaa meeshan calaamadaas yar oo sawirka muujinayso waxaana lagu qori doonaa image okay waxaa rinta ku qori kartaa waxaa dhigi kartaa person was here qofaa meeshan yaalay oo kale ama qofaa meesha soo dhidi raba okay marka af ingiriis isticmaal ama af soomaali waa isku mid marka qoraalkaas marka alternate loo yaqaanaa waa qoraalka loogu talagalay haddii imageka uu soo qawaayo inuu soo muuqdo haddii imageka uu saxan yahay qoraalka waxba soo muuqana maayo saa ujeedid image bisa soo muuqanayo dotkan hal mar aan isla fiirino dotkan waxaa waaye tusaale haddii aan dhaho .forward hadaa dhaho tusaale fileka waa xiray waxaa kasoo furi doonaa qaybtana kasoo furi doonaa hadda .forward maana dhihin .forward ma dhihin laakiin fileka soo furay imageka ma soo qabanayo soo ujeed haddii aan dhaho .forward hadaa dhaho fileka ay soo laabanaya waxaa kusoo laabanaya codekii .forward hadaa dhaho xitaa haddii meel banaan laga soo furo oo folderkaas banaanka laga soo furo inta laga soo furo sawirka mar walba uu soo qabanaa .forward waxaa waaye xitaa haddii explorerka laga soo furo fileka oo markaa fileka laga soo furo saa ujeeda explorerka laga soo furay saa ujeeda wuxuu soo qabanaa dhammaan sida userka desktop html media okay balse kan waxaa kasoo furmayaa dabcan live serverka ayuu markaa ku ranjaraysmaya kanna waxaa weeyaan from the explorerka waa marka explorerka markii laga soo furayo waa in .forward aad dhahdid hadhow haddii kale sawirka uu ka akhrisamaya marka .forward la-aanna waxaa weeyaan haddii explorerka laga soo furo
in sawirkaas uusan soo muuqanaynin. Okay, hadda marka la soo furo waxay imaanaya inta waxa soo furi doonaa media sawirka ma soo muuqanayo. Okay, inta yar waxaan filayaa inaadan ku wareerin hadhow haddii kugu dhacdo in sawirka uu soo muuqan waayo. Okay, sawirka hadduu folderka ku dhex jiro gabaran waxaa imaanaya qaybta HTML-ka waa kana folderka HTML-ka waa kana aan isticmaalno. Waxaan sameynaa folder kale, folderkaas oo u bixin doona images oo kale. Okay, imageskan waxaa dhex geliyay folderkana dhex geliyay. Miisoo qabanaya marka miisoo qabanaya. Hadda halkan ay imaado soo jeed image ma soo qabanaya. Marka folderka maadaama uu ku dhex jiro waa kana folderka sidee u aadi karaa marka folderka. Waxaa dhaysaa .ford soo jeed waxa ku soo qabanaya wixii inta yaala ku soo qabanaya. Kan meeshan u yaala soo media waa kana wixii ajyaala ku soo qabanaya. marka folderka ku soo qabtay waa jira image ku dhufanaysa kadib folderka gudihiisa waxa ku soo qabanaya sawirka ay ku soo qabanaya marka .ford waa inaan dhahdaa si folderkaas au sii aadid ma fahmaysaa si folderkaas au sii aadid saa ujeedaa uu soo qabtay marka tusaale kale haddii kabaran isla fileka media folder oo kusii dhex jira kabaran tusaale kale waxaa dhihi doonaa folder waxaa samayn doonaa folder internal samayn kartaa hadda banaanka waa aragtay internal uu samayn karaa halkaas ku dhufanaysa waxaa leedahay html meesha waxaa gelinaynaa html files gelinaya dhamaantood isoo wada koobiye halkan ku dhufo shift qabo halkan ku dhufo dhamaana lagu koobiyana soo daraa jiray halkaas u aadi kadib waxaa dhihi doonaa enter kabarana hadda wuxuu ku dhex jiraa meel kale ayuu kusii dhex jiraa sidee markaa uu soo dooran karaa ila socoyaa .ford hadaa dhaho waxaa iisoo qabanaya into agtiisa taale bis inta folderkan kula dhex jira bis ayaa iisoo qabanaya marka waxaa ku qasbanaya inaad dhaho .ford inaad dhaho ku qasbanaya si folderska banaanka ah u aado sida images oo kale kadibna imagekii aan u aado ma fahmaysaa okay .ford inaad dhaho ayaan ku qasbanaya marka intaa waxaan filayaa in si fiican u fahanteen hadda saa u jeedo media ma soo qabanaya because media.html ma jiro waxa la waa inaa folder aadaa aad dhaho html kadib .media.html markaas ayuu iisoo qabanaya ma fahmaysaa hal mar meesha aan idinkugu celiyo waxaa ka wadaa markii local host la soo furo live server markii la soo furo file oo home ka yaalo ama folderkan file yaalo meesha ma jiro file meesha yaalo oo loo yaqaano media ma jiro wuxuu ku dhex jiraa folderkan ku dhex jiraa marka waa inaa folderkii aad dhahdaa tusaale html forward slash marka badanaa uma baahnid inaad saan u qorqortid balse haddii aad meesha joogtid dabcan right click open live server asaa automatically kuu soo furayo muhiim ah inaad qorqortid laakiin waxaan rabay kaliya inaad idin tuso ma fahmaysaa okay hadda marka qaybta sawirka isla fahnay sida haddii folder la gelin waa isla fahnay folder kale videos aan samayn doonaa folderkaas haddaa dhex gelin qaabka uu dhex doonana waa garanaynaa soo ma aan isla socona marka videos loo sameeyo okay folder kale sii dhex geliyo oo videos loo yaqaano marka sida loo sameeyo isla fiirino waxaa imaanaya media ayaa imaan doonaa marka qaabka loo sameeyo iska fududahay asina waxaan dhihi doonaa videos isticmaalaysaa dabcan empty tag maahan close tag uu leeyahay src dana marka waxaa gelinaysaa video ayaa geli kartaa sidoo kale waxaa samayn kartaa meeshan source wax loo yaqaano waana arkina qaabka loo sameeyo marka waxaa dhihinaa .ford waxaa aadaynaa videos folder kadib video ayaa aadaynaa halkan haddaa imaan waxaa arkaynaa video ayaana loo sameeyay dabcan wuxuu qabsan doonaa shaashada dhan oo qabsan doonaa saa ujeed aad u weynaan doonaa balse waxaa isticmaali kartaa sida kan oo kale which ayaa isticmaali kartaa halkan imaanaysaa dabcan maahan meeshan gudihiisana maahan meeshan gudihiisa maahan waa meeshan ama ha ka hormaro ama ha ka dambeeyo balse waxa weeyaan meeshan weeyaan okay width aa dhihi doonaa 900 markaa dhaho waxaa laii samayn doonaa cabirkaas saa ujeed labadooda waa lis agdhida because inline element waaye block element maahan inline element waa ogsono hadda tusaale kale haddaa dif aa dhex geliyo videoga waxa weeyaan wuxuu noqon doonaa block element noqon doonaa marka inline element block element waa yara fahansintiin arjena sawir cusub meel cusub waa la keeni doonaa balse hadda labadooda waa lis agdhida sababtoo ah labadooda waa inline element video tag iyo sidoo kale image tag labadaba so video marka waa kana hadda video saa ujeedo wax la taaban karo iyo wax la samayn karo ma jiro because de maba daarmaya saa ujeedid yani meesha laga daari lahaa wax dhan ma lahan so meesha si loo sameeyo marka meeshaan imaanaysaa hal mar aad tuso waxay imaanaysaa intaa imaanaysaa qaybtan okay qaybtaana soo dhex gelaysa waxaa leedahay controllers ayaa qoraysaa marka attribute ayaa loo yaqaanaa marka controllers markaa qoro saa ujeedo meesha laga daari lahaa assalaamu calaykum saa ujeedo moodaa saari kartaa video moodaa saari kartaa sidoo kale waxaa samayn kartaa inaad shaashada soo weynayso sidoo kale haddaa halkan ku dhiftid waxaa weeyaan downloadkii iyo play speedki intaba uu leeyahay oo speedka aad ku kordhinaysay ama daciif aa u dhidaysay waxyaalo badan download aa dhigi kartaa automatically oo lagu dejinaya saa ujeed videoga marka controllerska waa kaya marka okay waxaa kaloo samayn kartaa videoga marka qofka video automatically markuu daaro markale waxaa dhigi kartaa muted ha noqdo video marka qofka daarto automatically mute ha noqdo okay codka mujeda automatica loo xiri doonaa si automatica cod ayaa loo xiri doonaa sidoo kale waxaa samayn kartaa wax loo yaqaano loop ayaa samayn kartaa loop waxaa waaye in video maanta oo dhan uu socdo maanta oo dhan uu daarmo maanta oo dhan uu soo ceshashimo ayaa samayn kartaa haddii aa marka la idin tuso
video hadda tusaale lagu dhamaanayo fiiri video markii uu dhamaado automatically inuu soo bilowdo ayaa samayn kartaa badanaa waxaa loo isticmaalaa background video markii la sameeyo oo landing page background video loo sameeyo ayaa badanaa la isticmaalaa markii wax la yaqaano looping okay at automatically markii uu dhamaado videoga automatically waa soo bilaabaa because ujeedid loop ayaa saaran okay marka intaan waa waxyaalaha uu isticmaali karto controllers mood iyo loop marka qaybta kale waxaa kaloo samayn kartaa source meeshaan ayaa geli kartaa src inta meeshaan ayaa geli lahayd src inta meesha geli lahayd waxaa samayn kartaa inta ayaa dhex geli kartaa taaga dhexdiisa video taaga ayaa waxaa geli kartaa source wax la yaqaano waa empty tag waaye waxaa geli kartaa marka src linki ayaa markaa meeshan gelinaysaa sidaas awgeeda marka waa uu soo qabanaya waa lamid sidii hore ayuu lamid yahay wax walbana waa iskala mid yihiin kaliya waxay ku kala duwan yihiin in aad source qoraysid sidan aad u qoraysid ama in aad source yan aad dhex gelinaysid meeshaan marka video ku saabsanaa mediaha gaar ahaan sida sawirkii video loo soo geliyo halkaas ayaan ku sameynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu